السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جنالكينا يوتيوب أما برتنا براه بلشدا عبد الفتاح سلوب مدة كسيمان سنة وحومينا سوقلينين عاويني كلام هذا عشر كسابسن ديزاينينكا iyo waxyaabihii la midka ah hore uga badatay channelada waxaan doonaynaa inaynu ka hadalno dhanka dhaqaalaha tutorialskan oo aan marar hore carabaabay inaan bilaabi doono oo in badan dib iga dhacdhacay ayaa waxaan doonayaa caawa inuu kani kow ka noqdo oo ay qaar fara badan oo socon doona noqdaan waxaan doonayaa inaan idinkula wadaago horta marka horeysa projectgeena cusub dakhli oo aad ku aragteen prayna bulshada aanu soo gelinay inaanu sii daynay oo uu live yahay oo shaqaynayo dakhli waxa weeyaan waa jeebkaagii labaad dakhli waxaan ugu talagalnay lacagtu maaha inay intay soo gasho uun kaa baxdo track la'aan ama adigoo aan ogeyn meelay martay iyo waxay kaaga baxday waana waxyaabaha keenay in qofku uu garan waayo miyaad kobcaysaa mise hoos baad u dhacaysaa caawa muuqaalkan wuxuu noqon doonaa dulmar guud iyo inaan featureska dakhli aan mid u yara taabto oo aan hore ka dhaafo way noo dambeeyaan tutorials kale oo fara badan oo sharaxaad ah oo aynu ku sharixi doono platformka oo aynu mid isula qaadan doono wixii features cusub ee lagu kordhinaya inaad nala soo wadaagi doontaan ee aad aragtaan idinkuna inaad nala jitaabisaan baan doonaynaa qofkuna marka u horeysay uu isdiiwaan geliyo waxa uu helayaa waxa weeyaan free trial 7 days ah ayuu helayaa oo any feature ku tijaabin karo hadhow haddii uu ku qancana oo waxaan koobuna dhannayn oo $2 iyo badh si uu waxaaga organized u noqdo oo dhaqaalahaaga la socon karto haddaba dakhli waxa uu ka dhashay waxa weeyaan aniga caqabadii haysatay freelancer ahaan Cabdifitaax ahaan caqabadii haysatay ayuu ka dhashay oo ahayd inaanan ogaan karin bishan maxaa isoo galay dhaqaalahan waxaa laga yaabaa inaan intaasoo project ka shaqeeyo lacagtu si habaqa ii soo gasho oo project halfkii la ii diro haddana project aan dhamaystiro halfkii kale la ii diro qaabka ay ii soo galgasho bishu markay dhamaatana sidii qof mushaahar soo dhacayo lacag buuran hal mar soo galaysa aanan ahayne aanan garan karin bishan maxaa isoo galay maxaa iga baxay bishii hore miyaan ka dhaqaala badanahay mise waan ka dhaqaala yarahay aanan garan karin cilad saas ay haysatay oo aan applicationno fara badan oo international tijaabiyay ayaan ka dhalinay fikradan oo aan doonayay in asxaabta ila midka ah ee freelancerska aan filayay inay qabaan inay iyaguna xalkeedii ay noqoto xalkeedii oo jaban dadka internationalka isku mid ma nihin waxaa laga yaabaa features fara badan oo u baahnayn inuu ku jiro inuu dhaqaalihiisu iska badan yahay haddaba dakhli wuxuu ka kooban yahay featureskiisu waa kuwa halkay noogu yaala waxa weeyaan dashboardkan guud marka hore wuxuu ku dhisan yahay systemka loo yaqaano budgeting systemka loo yaqaano 60-20-20 ama in 60% aad ku bixiso wixii baahiyahaaga ah 20% aad save garaysato 20% wixii lifestyle ah ee laga maarmi karo laakiin de iska lifestyle aad isaga baahan tahay inaad meelaha dhowr habeen ka soo cashayso waxyaabo yar iska iibsato dhar yar iska waxyaabo noocaas oo aan aad ugu baahnayn inaad iskaga bixisato ay iyaguna ugu qaybsan yahay marka wuxuu samayn doonaa imika haddii income-kaaga markaad soo geliso halkan wuxuu ku dhisan yahay qaabkii freelancing-ka ahaa oo ah project-gani ma paid baa gebigiisuba ma project-gani ma mid partial ah oo aad qaybna imika heshay qaybna aad sugayso oo markaad project dhamaystirta aad qaadanaysaa mise gebigiisuba wada taagan yahay oo imikoo kale waa event aad ka shaqaynayso oo markaad dhamayso eventka shaqadiisa ayaa lacagta lagu sii wada daynaya saddexdaa qaabba income kugu yahay expenseskaagii baa isaguna halkan kugu yaalo oo aad gashanayso adoo dooranaya category-ga uu expenseskagu yahay transportation utility office supply software and tools waxa xalyaalo wixii aad isticmaasho aad halkan ka dooranayso ayuu leeyahay halkan waa classification expenses kaagan aad kala saari kartaa expenses kaagan ma needs ba ma saving ba ma lifestyle ba saasaad u gelin kartaa duties and debts kii buu leeyahay oo ah cidda aad adigu lacag ku leedahay iyo cidda adiga lacag kugu leh halkan marka waxaad gelinaysaa cidda adiga lacag aad ku leedahay lacagaha ka maqan oo dhan halkan uu ku soo saaraya hadhow marka aad paid tiraahdo ee qofkii lacagta soo danana direct wuxuu gelinaya income kaaga ayuu ku wareejinaya halkan waxa weeyaan ciddii adiga lacag kugu leh marka ciddii adiga lacag kugu leh waxay noqonaysaa
ciddii aad deyn kugu leh kiraa ha noqoto internetkii subscriptionkii adoobada waxyaabahaas oo dhan hadhow markaad paid tiraahdo wuxuu gelin doonaa expenseskaagii halkani waa saving goalkaagii haddii aad doonayso inaad computer cusub iibsato just click baad leedahay halkan waxaad gashanaysaa waxaan doonayaa laptop cusub inaan iibsado then progress barkaas ku siinaya haddii aad halkan geliso iminka new laptop baan doonayaa new laptop kadib waxaad gelinaysaa target budgetkaaga waxaad tiri iminka oo kale 1200 weeyaan waxaan doonayaa inaan iibsado deadline-kaygu waa July 16keeda then July 16keeda create baad leedahay then maxaad arkaysaa halkan buu new laptopkaagi saving goalkaaga kuu soo dhigaya halkaasina waa totalka guud qofku wuxuu yeelan karaa dhowr saving oo kala duwan oo target ah marka halka wuxuu kuu soo dhigaya inta guud ee saving laga doonayo iyo goolashaad iyo iyaguna xagga hoose yaala halkan waa export oo datadaadii aad kala digi karto halkana waa setting-kaagi intaas waa overview guud waxaanu qaadan doonaa tutorials kale oo fara badan oo bit by bit aynu isla sharixi doonaa insha Allah soo dhawaada wixii faalladiina commentiga igu soo qora community center baanu sameynay telegram insha Allah linkigiisa description-ka aad ka heli doontaan aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaantiin soo dhawaada isku soo noqod wacan muuqaalo fara badan oo inoo soo socdaan insha Allah waxbarashadii iyo training-ka aynu ka bixi doonaa real life-ka ayaynu u gudbi doonaa marka aynu dakhli iyo personal finance-ka iyo income tracking-kaaga aynu ka baxnana waxaynu u gudbi doonaa balqaabka iyo freelancing iyo qaababka uu sii soconayo iyo qaabka aad projects u heliyeed platformyada aad geli karto siyaabaha aad personal brand u dhisi karto waxyaabahaas oo dhan baynu isla gudbi doonaa insha Allah laakiin marka hore waxaynu samayn doonaa inaynu dhisno weelkii aad wax ku urursan lahayd ama dee projectska aad doonaysay inaad gasho halkii aad ku urursan lahayd waxa kaa soo gala inaynu marka hore isla dhisno insha Allah soo dhawaada dhammaantiin nala tijaabin doontaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh